ayadoo bil ka hor la dhaariyay 89 mudane oo ka tirsan baarlamaanka dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa madaxweynaha dawlad goboleedka Koonfur Galbeed waxa uu ku guuleystay in uu soo dhameystiro xubnihii ka dhimana dawlad goboleedkiisa munaasabad ka dhacday xarunta madaxtooyada dawlad goboleedka Koonfur Galbeed ayaa waxa ka qayb galay madaxweynaha dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya mudane Shariif Xasan Sheekh Aadan xubno ka socday urur goboleedka IGAD iyo wasaaradda arrimaha gudaha ee dawladda Soomaaliya iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya waxaana lagu dhaariyay 56 mudane oo ka mid noqon doona mudanayaasha baarlamaanka dawlad goboleedkaasi Malaag Maxamed Yacquub Malaag Deero afayeenka malaagyada dhaqanka ayaa uga hambalyeeyay mudanayaasha baarlamaanka ee usub maanta la dhaariyay arintaas dhamaanteen maylana hambaliyo xildhibaanada cusub maylan siinlana xildhibaano hambaliyo feeski lamaad waay oo xildhibaanadan tilka dhaariyaw may basin lana xilkin gududo insha Allah taala xildhibaanada kelmad yar Allah xildhibaano may la siin dooraday in wadankan samatbiidan may la siin dooraday in xukuumadda garab istaagdan may la siin dooraday in shacabkiisa ku bataan isin shaqaytan may la siin dooraday in isan walwalba oo shuruuca wadankan aan baahanyi si degdeg ah leen galo sidoo kale waxa goobta ka hadlay xubnihii ka kala socday urur goboleedka IGAD iyo wasaaradda arrimaha gudaha ee dawladda federaalka Soomaaliya oo ayagu xildhibaanada ku booriyay in ay la yimaadaan wax qabad wanaagsan waxyaabo badan oo dhigno soo marnay dib u heshiisiinta intaan ku jiro hadda laakiin kii rasmiga ahayd oo wadanka lagu dhisayay idinka lidii saaray xildhibaanada shaqada ugu muhiimsan idinka idin taala arintaas waxa la rabaa wax badan ayaa la eeday federaalka meesha uu yimid waa ogtihiin hadda koorana waa ka hadlay in badan ayaa loo haastay in qabaa'il ahaan wax loo qaybiyay iyo kii nagala wareegay meel fiican waa soo dhigeen xildhibaanada maamulka Koonfur Galbeed waxyar baan leeyahay xildhibaanada la idin diyaariyay kitaab quraan aad marteen meesha aad wax ka bilowdeen iyo xaaladda dalka u taalana waad u jeedaan horta marka hore waa la rabaa inaydaan niyadda gelinin haddii aad xildhibaan maamulka Koonfur Galbeed noqoteen dawladda inaysan jirin midaas ku talagala dawladda dhexe waa hooyadii ummadda Soomaaliyeed sidii oday dhaqameedka marna ay u shaqeeyaan sidii baarlamaanka mar inaad sidii amniga u shaqeysaan oo amniga wax ka qabataan ugu dambeyntii madaxweynaha dawlad goboleedka Koonfur Galbeed mudane Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa kula taliyay mudanayaasha usub ee maanta la dhaariyay in ayaga iyo kuwii hore wax qabad wanaagsan ay la yimaadaan ilaahay wali si ku toogay inahan oo dalkii dadka badbaadiyay oo sharaf karaama helay oo dhibaankii hore oo maamulka Koonfur Galbeed weeldadi aydan ma santiin baraanku wali rajeynayna inuu shaqadiis guduud loo ku bilaaw bareenaysan shirtaa la faday odayga in ka dhaqanka weyn ilaahay weyn inuu soo hogaamiyo guddiidii doorashada magacaabataan ee wada talataan gudoomiye baarlamaanka musharaxiinta arjiida waqti la qabado iyo waqtiga ka sheegtaan waqtiga lis doorado sheegtaan gudoomiye lama ku xigeen doorataan en tiirkan ka weyn oo in la qabsado la fadawayso tiirka in la qabsado la fadaw oo xaqiiqada dawladnimada tiirkan ku culus tiirka kida walaa isla ku fadaw wali baan aragay dhibaatooyinkii la ku baxi oo ilaahay hanoobi dhibaatooyinkii la mari wala ku dhiman dhameystirta wana madinta la bilaaway madaxtooyina ma qabno inuu ka shaqeeyay waraysiga doorada ciidanna ma qabno lambustooda qabana ma reejar en waylaray lixdan iyo nashan wasiir ma soo bidiyay dibu dhis dibu xoreen dibu heshiisiin la fadhiyo hadda ma ilaahay 149 dhawaan ma ilaa suubi ma ilaa ku faday dibu dhis dibu heshiisiin Maxamed Aadan Socdaal TV-ga dawladda Jubaland magaalada Baydhabo